markhaati ka ahaada wiil oo markuu qalad jabiye arwaa la markiina qaata marka waa weediyaa oo saxaad ku baasta dhaha dhawa siyaacina hadda ka fiirso siyaacina waxaan qariimahaayo maqaarkaasaan rabaa aniga hadda mar dambe yaa idinka maqlin Soomaali waxa jooga editoriyaal joogan mar dambe yaa idinka maqlin us damiinkood Neymar ofan kuulo waxaas editor ma aha damiinkood Neymar ofan kuulo waxaas editor ma aha 10 daqiiqo kadib wax kala dhac taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed gaar ahaan hogaanka baarista dambiyada qaybtiisa baarista dambiyada CID waxay gacanta ku soo dhigtay wax kasta ay suurtagal si dhaqsi ah maxkamad loo horgeeyna xukun ugu dhici doona insha Allah maxkamadda awood u laan xukumi doonto hadaadna ilaalin weysay anagana ku ilaalin mayn hooyada awood toban eedaysane oo kamid ah dadka baraha bulshada ka faafinaya dhaqan xumada yaa ogolaan in walaashiisa inuu meel intuu soo istaajiyo aan weydiino see u jeceshahay xaajiga inuu habeenka ku isticmaalo kulligood waa diiday in walaashooda la weydiiyo waxayna rabaan inay gabar Soomaaliyeed weydiiyaan inay meel soo istaajiyaan wallahi bilaa meeshan askari goode saada dhisi ama saada ka yeeli mayno waa daba taaganahay kuwa kalena waa soo qabanaynaa qof in la ii keenay karfan ku jirto oo la qofkaan waa dhintay maca salaamo ka bacdina geedaan soo qaatay sankaan ka saaray qofku waa hindis xasadida kamiye waligeeba waa ka caadi waa ka cad dadkan walaalo waay yaa soo dhaxgelin way jeceliin dad jecel waay wala wariyarkaas killer waay ugu salaama yarkaas ayaa suuq weyn waay aan soo ilaalsan awaydaas kan soo raadka nagta arraabta saaro laba shay ka been agagado ha ii maato maxaan badano nolosheedii qalbi uroono hay dhadhado hay u dhadhigto aan iska fujuway qandaaqa mugta aniga oo ku dhiganay unug yar waay laakiin maskax badan ku jirto waxay leeyihiin gabadheeda sunugida waa inay ahaato waa inay daba lahaato raggiina ayada nafta ka ridde hadda ka hor yar saaxiibkeeya oo soo mijeesta la yiraahdo wuxuu guursaday gabar sunugida ah gabadhii sunugida ahayd har iyo habeenba waxay rabtaa ayada in waxaan ku iraaday hawsheeda ay socoto aakhir waxay tagtay yarkii in naftu ka dhacdo naga baxay tusaale mudan maalinka xil ay doorto baawrku ugu dhow tuulada u socdo raac waxa soo dhawaaqay sababku gaaga baxay ana hadda xilleeydi horta cadownimo aan qaba hadda ogaan leeyeen horta ilaahay anu xilli ugu diiday baa wallahi kan ila dhashay xataa waa xirla suu ogaad ina xil haayo inna lillahi waxad waxa laga soo sheegay gabar hata iyo telefoon halow markii la dhahalow ay dhahday telefoonka timbahana waa ka buuben naasihina waa la waay hoostana waa la waaya la dhahay balastay muxuu sheegaa waxbaan kaa gadanaya wax iga iibso ninkay waa nin madaxdana waa loo labisaa dharkana waa loo soo gadaa madax miya yaa majaamarka يا أقوس مايا Don't you see us? دين مرة أنا بابور كان صور راعي هذا هو بابور كان صانع Okay, move. موفقة This is not just sit. Move. أمبولا ساكا صور أنا موفقة تدخل Oh بالي my God. إنه لله مقعد عليك aniga deeqo استاذ subito iga bax meesha ya banaan ku bax oo saasa bax ayaa ka bax hadda waxaan ka qornaa inaad wadaad tahay mise waxaan ka qornaa inaad siyaasi ku tabaxoorta
نقص كجواب سهل هذا هو اللي جوجو إيدي أو فربنا اللي جالس مي إن أنا أديلك إكرام كله جهيد هذا يقولون مركز شغلة كتكتي ضد ركبة إيدي سوى حتى رهيب بقى يا كجرة حد أنا وتأدنو شيء إن جديد كأن كاحر مان أقوي من غير حمر ممكن دمنا تهريب كتني مرت إكرام يا دلي Soomaalida ay la dhaqmi jirteen kama mid yahay ku meelan xafiiskaaga ahayn hadaan ku kulmi lahayn si kalaan kula hadli lahaa hadii adiga aadan official ahaan lahayn talaabaan ka qaadi hadii adiga aadan official ahaan lahayn talaabaan ka qaadi صاف لكفار لكهاو لكفار قدو wuxuu sameeyay maarad agtiida waxba kama aha laakiin mo special tara special waxay akhriyaan heesa la ka seeniya walaasha see u jeceshahay xaajigaaga inuu habeenkii ku isticmaalo kulligood waa diiday in walaashooda la weydiiyo waxayna rabaan inay gabar Soomaaliyeed weydiiyaan inay meel soo istaajiyaan ka yeeli mayno waa daba taagannahay kuwa kalena waa soo qabanaynaa kuwaana hadda si dhaqsi ah maxkamad loo horgeynaa xukun ugu dhici doona insha Allah maxkamadda awood u laan xukumi doonto dhulkaas waa ku daayay